markale waxaan leh gabdhaha Soomaaliyeed ee muslimaadka ah ee dhaqan xumada ay ka muuqato ee nin ajnabi ah ice cream ku kaga doorsan haya inay jirkooda ay ruxaano arrimaha noocan ee ku soo badanaya social media ducaadu ha ka qaliyeen bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله في كل مكان أحبكم في الله كلمة وحي دارنتهاي كلمة وحي كوة جهنتهاي كلمة وحي سيقوني أخصيصا أرين نغيا بالسي أما naga fajcisay ka fajcisay dadka inta badan social media isticmaala gaar ahaan dhacdadu marka ay ka dhacdo wadanka aad joogto iyo meesha aad joogto waxay kugu yeelanaysaa dareen gooni ah waxay kugu yeelanaysaa saameyn gooni ah bay kugu yeelanaysaa dhacdadaas iyada ah waa dhacdo kaga qaylisiisay waalidiin aad u fara badan khaasatan waalidiinta Turkiga ku nool u naxay una cabsaday gabdhahooda iyo wiilashooda intaba markay arkeen ayagoo fiirsanaya markay arkeen ayagoo daawanaya gabdha muslimaada oo Soomaaliyeed oo hadday doonaan zayigii iyo xijaabkii iyo asturkii islaamku uu amray quraanku uu amray nabi maxamed uu amray sallallahu alayhi wasallam lagu yaqaanay gabar xishood badan oo qiimo badan oo qadarin badan markay arkeen ayagoo ku dhaafsan haya xishoodkoodii ayagoo ku dhaafsanaya Soomaalinimadoodii xabad ice cream ولذلك baa kelimada waxaan u bixiyay ha ku dhaafsan diintaadii akhlaaqdaadii iyo Soomaalinimadaada ha ku dhaafsanin xabad ice cream ha ku dhaafsanin marka nin ajnabi aad hortiisa iswalaaqayso adoo gabar muslimad oo asturan laga yaabo inaad tahay hooyo kuna dhaafsan haya xabada aan sheegnay ee ice creamka ku dhaafsan haya miyaynan ahayn arrin dhaawacaysa adiga xishoodkaadii iyo akhlaaqdaadii miyaadan adigu safiir u ahayn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba inaad u ilaaliso dhaqankooda miyaadan mas'uuliyadda aadan garanaynin oo qaadaynin arrimaha noocan ee ku soo badanaya social media ducaadu ha ka qaliyeen ducaadu ha ka hadleen way ka hadlaane ha ku celceliyeen مناسبات كلا دونا هكذا براروجيا بإذن الله سبحانه وتعالى من باب أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هدانا الحمان تكديدين هدانا أخلاق هدانا لقن حمضا أنا كحمان دونت وأنا لدقيسة وأنه غرقوا بين كل جيو سيدو النبي محمد شاقي صلى الله عليه وسلم رب العزة وحده ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وحكولها هل إذن كهلوا مجموعة أما كوح أما أمة ضدك وناقنا الشيقة xumaantana ka reeba haddaan xumaanta la reebin wanaaga haddaan la farin dhulka ayaa la isla goynayaa aynaga dhan bay maslaxad noo tahay
مركله وحان له قبلها صومالية ذي مسلمات كأهو دقن حمضة أي كمو قطو إن أجنبية آيس كريم كود كو كقد دور سنها يا إن أي شركو ذا أي روحانو إلهي أغبقى نفتينا إلهي أغبقى ودينتينا إلهي أغبقى وحشوتكينا الله أغبقى وأمدينا إلهي أغبقى الصوماليات وأولادينا عرورتينا الله أغبقى واحترام والدك إذن للي يكوي إذن قبي يكوي ولا لها إذن أها انتبا إلهي أغبقى كلمة وحانوغة شهدا dhacdadaasi meelo badanna ka dhacday markii u dambeysayna Istanbul gaar ahaan Turkiga gaar ahaan Istanbul ka dhacday inaan ka dhiidhino oo aanu ka xumaano oo kuwii sameeyayna aan dhahno ha u noqonina idinma wanaagsane kuwa ku soo socdayna ay ka istaagaan kelimadu intaas ayay daaran tahay mar labaad waxaan leenahay u tur diintaada iyo xishoodkaada إيا أمضى إيا والدك انتبه هذا وبالله توفيق وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.